waxaan ku bilaabi doonaa qaraxiyo kala duwan oo ka kala dhacay degmooyinka Dharkeenley iyo Hiliwaa. waxaan ka hormaraynaa kan ka dhacay degmada Dharkeenley waxaa la sheegay in lala beegsaday gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada Kaxda gudoomiye Cabdinaasir oo la sheegay in qudhiisa uu ku dhaawacmay halka ilaaladiisana ay soo gaareen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. haddaba mid ka mid ah goobjoogayaasha ku sugan halka uu qaraxa ka dhacay meel u dhow ayaa khadka si toos ah ugu jiro. Cabdinuur ayaa lagu magacaabaa. Cabdinuur soo dhawow, bal sidee wax u dhaceen? gudoomiye amniga Cabdinaasir Xasan Cali ayaa loogu xiray gaariga qarax marka sidii warkii u soo gaaray in wax lagu xiray iyo haye in kale laakiin muhiim oo saaka shaqadiisu ku jira meeshaan dhinacan aadan suuqliif markaas ma wuxuu ka tegay dhanka degmada mise uu soo socday kolley gudoomiyaha meeshaas uu marayay xilli uu shaqo u socday oo wadadaas marayay bay ahayd. waan gartay marka wax dhanka khasaaraha haddii aan ka eegno bal gudoomiyaha waa dhaawac ayaa la leeyahay. sidoo kale maxaad og tahay oo ilaa haatan oo khasaare ka dhashay ilaa waxaan la soconaa inay ciidamo ilaalaha ay la socdeen? gudoomiyaha waa dhaawac ciidamada staafka wiilasha staafka ana ayagana dhimasha soo gaadhay sida la ii sheegay hal askari baa dhinta marka hore la ii soo xaqiijiyay hadda laba askari baa la ii sheegay inay ku dhinteen. waan gartay gudoomiyuhuna waa dhaawac waana fiican yahay xaaladiisa. wax oo isbitaal la geeyey oo aad ka warqabta ma jiro aad dhigi karto isbitaal hebel ah dhaawaciisa la geeyey? wax kale oo intaasna ka warqabo oo hadda oo khasaare ah ma jiro. aad u mahadsan tahay. dhaawac baa soo gaaray waana fiican yahay caafimaadkiisu. labada askarina waa ku dhinteen marka taas ay u jiraan. aad u mahadsan tahay. waa wixii warar ay ku soo kordho qaraxyadan ka kala dhacay Ex Control Balcad iyo degmada Dharkeenley intaan barnaamij ku guda jirno ayaad maqli doontaan. haddii aan aadno dhankaas iyo isgooska Balcad sidoo kale waxaa la sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay lala beegsaday qarax aad u xoogan kadibna ciidamadu waxa ay rasaas xoogan ay halkaasi ay ka fureen balse goobjooge ku sugan goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaan guur dhow la xiriiray waxaana wax ka weydiiyay sida ay wax u dhaceen. kolonyo ciidamada AMISOM oo maraya meeshaan Ex Control Balcad ayaa qarax lala eegtay kadibna rasaas iyo bilaabeen sooska ma isgooskay marayeen mise meel u dhow kolonyada AMISOM? isgooska Ex Control Balcad waa ay marayeen. marka meeqay ahaayeen meeqa baawur camal meesha maraysa? kulley baawurta badan yihiin kulley weeraan adii 10 baawur camal. marka qaraxa meesha ka dhacay waa qarax noocee ah? ma qarax miino oo meesha lagu sii duugaa mise miino waxa hadda dhacay waa rasaas Soomaan? waxa hadda dhacay waa rasaas aad fara badan. adiga intee ku sugan tahay marka? isgooska meel u dhow joogtaa? meel ganacsi aan joognaa.